xogayaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee xisbiga wadani Hinda Jaamac Xirsi Gaani oo shir jaraa'id ku qabatay hotel Ramad ee magaalada Burco ayaa ka xog warantay deegaanka Hulul oo ka tirsan gobolka Sanaag oo ay dhawaan ku tagtay kormeer xisbi. Hinda Jaamac Xirsi waxay sheegtay in dadka ku dhaqan deegaankan ay qabaan baahiyo kala duwan iyadoo sheegtayna inaanay lahayn xafiis degmo. Iyadoo Hinda Jaamac ka hadlaysa arrintaas iyo arrimo kaleba waxay tiri sida tani. maanta ay bisha December 23 2014 waxaan jecelahay inaan in yar u iftiimiyo bulshada reer Somaliland ama siba qurba joogta degmooyinka ama gobolada bari baahiyaadka iyo dhibaatada aan ku soo arkay markii aan booqashada ku tagay 20kii bisha December degmada Hulul iyo nawaaxideeda aan kormeer xisbi ku tagay anigoo taageerayaal cusub oo ku soo biiraya xisbiga iyo xafiisya ka soo furaya degmada Hulul sidoo kale waxaan booqasho ku maray degmooyinkii ay hore nooga furnaayeen xafiisyadu oo ay kamid tahay degmada Garadag waxaan la kulmay sidoo kale bulshaweynta degan Laastomaare Waridaad Barkada Cali Xirsi iyo meelo kale oo yaryar oo badan run ahaantii dhulka aan soo maray qaar waxay ahaayeen degmooyin qaarna waxay ahaayeen tuulooyinku iyagu haba iska dambeeyeene waxaan doonayaa inaan warbixin yar aan bulshadayda reer Somaliland ama qurba joogta gaar ahaan cidii danaynaysa gobolada bari inaan u iftiimiyo baahiyaadka iyo dhibaatooyinka ka jira deegaamadooda run ahaantii iyadoo aanan siyaasadeynaynin waxaan doonayaa inaan u iftiimiyo dadka baahida dhabta ah ee waaqaca ee ka jirtay degmada Hulul iyo aagii aan tagay marka ugu horeysa degmada Hulul waa degmadaas oo ah degmo aan iminka dawladda cusub ee kulmiye aanay bixin ee waqtigii dawladii daahiriyaala kaahin ahay degmada waqtigii uu degmada siiyay mudane daahiriyaala kaahin oo madaxweynihii jamhuuriyadda waqtiga ahaa iyo maanta inta ka dhexle cid ka dambaysa umay tegin Hulul waxay u baahan tahay xafiis degmo oo kow aanay lahayn suuqu iska wareegaalaysanaya maayirku meelu fadhiisto guryaha reerahooda ayuu marba guri iska fadhiistaayo loogu taga waxa loo baahan yahay in loo dhiso xafiis degmo waxa loo baahan yahay in loo dhiso saldhig wuxuu u baahan yahay in loo dhiso jeel waxay u baahan yihiin in loo dhiso meel ay garsoorku galaan oo maxkamadaha ay degaan waa Maxamed Cali Axmed Kaabe wararka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Burco.